kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeena ciyaara halkaad kala socotaan waa Cawaalo Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeenana waxaa ka mid suuqyo kala iibsiga oo xalay xidhmay iyo liiska ciyaaryahanada lala kala wareegay oo dhammaystiran. Muxuu yahay ballanqaadkii Aubameyang awgii uu sameeyey burbure markii uu ku biiray Barcelona? maxay tahay sababta Lionel Messi maaliyadda nambar 10 ugu xidhay xalay kulankii PSG miyuu la wareegay? waa kuma xiddiga lafdhabarta Real Madrid ee dhaawacmay goor kulanka Champions League ee PSG. barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar, haddii horena joogtay like share ku dar siina faafi barnaamijkeenan. liiska dhammaystiran xiddigaha sida rasmiga loola wareegay maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ee xidhmay. qodobkaas ayaa aynu ku bilaabi doonaa barnaamijkeena. suuqa kala iibsiga ayaa soo xidhmay xalay iyadoo la sameeyey saaxiibo badan. halkan ayaa aynu idinku soo gudbi doonaa liiska ciyaaryahanada lala kala wareegay maalintii iyo habeennimadii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga. isagoo faahfaahsanna waa sidan: Aubameyang oo ka tirsanaa Arsenal ayaa waxa uu wareegay kooxda Barcelona. si free ah ayaa ay ku heshay kooxda Barcelona. Dele Alli oo ah ciyaaryahan Tottenham ayaa u wareegay dhinaca kooxda Everton waxaana lagu iibsaday adduun gaaraya 12 milyan oo gini. Alva oo ciyaaryahan ka tirsan Granada ayaa isaguna u wareegay dhinaca kooxda Barcelona wuxuuna ugu wareegay qaab amaaha. Aston oo ciyaaryahan Color Rabri ah ayaa waxa uu ka wareegay Arsenal lamana shaacin lacagaha lagu iibsay ciyaaryahanka iyo in rasmi loola wareegay iyo inuu amaahiyey toona. Donny van de Beek oo ciyaaryahan Man United ayaa waxa uu digarrigtay Everton waxaana ugu wareegay qaab amaaha. Matt Targett oo ka tirsan Aston Villa ayaa u digarrigtay Newcastle waxaana ugu wareegay qaab amaaha. Bryan Gil oo ciyaaryahan ka tirsan Tottenham ayaa isaguna u digarrigtay Valencia wuxuuna ugu wareegay qaab amaaha. Bentancur oo ah ciyaaryahan Juventus ka tirsan ayaa u digarrigtay dhinaca Tottenham waxaana lagu iibsaday adduun gaaraya 19 milyan oo euro. Ramsey oo ciyaaryahan ka tirsanaa Juventus ayaa wuxuu ka degay Rangers waxaana ugu wareegay qaab amaaha. Christian Eriksen oo ahaa ciyaaryahan bilaa kooxa kadib markii Inter ay kasashay heshiiska ay kula jirtay ayaa wuxuu dhinaca Brentford ka degay waxaana ugu wareegay si bilaasha. Julian Alvarez oo ka tirsanaa ciyaaryahan River Plate ayaa waxay iibsaday Man City waxaana ku iibsatay adduun gaaraya 17 milyan oo euro. Nobile oo ka tirsanaa kooxda Tottenham ayaa u wareegay Lyon waxaana ugu wareegay qaab amaaha. Daniel Zakaria oo ka tirsanaa kooxda Borussia Mönchengladbach ayaa waxay iibsatay kooxda Juventus waxaana ku iibsatay adduun gaaraya 8 milyan oo euro. Nat Phillips oo ciyaaryahan Liverpool ayaa waxuu ka degay Bournemouth waxaana ugu wareegay qaab amaaha. Tino Arjuno oo Chelsea ka tirsan ayaa ka degay Huddersfield waxaana ugu wareegay qaab amaaha. Islam Slimani oo Lyon ka tirsan ayaa waxa uu ka degay kooxda Sport Lisbon waxaana ugu wareegay qaab bilaasha. Jermaine Defoe oo ka tirsan Rangers ayaa ka degay Sunderland waxaana ugu wareegay qaab amaaha. aynu intaa kaga nimaadno suuqa kala iibsiga aynu eegno dhinaca iyo wararka kale ee kubadda cagta. muxuu yahay ballanqaadkii Aubameyang awgii uu sameeyey burbure markii uu xalay ku biiray kooxda Barcelona? qodobka isaga ayaa aynu milicsan doonaa. Aubameyang ayaa garowsaday inuusan xilli ciyaareedkan oo dhan sidaas ku jiri karin
ayaa shalay si iskii ah u tegay magaalada Barcelona, taasoo sababtay xal degdeg ah laga gaadho mustaqbalka Arsenal ayay isku fahmeen inay si wadajir ah u kansalaan heshiiska, taasoo u sameynaysa in wakhtiga uu doono ku biiri karo Barcelona iyadoo xitaa suuqa kala iibsigu xidhmay. Si kastaba ha ahaatee, heshiiska Barcelona ugu wareegay 32 jirkan ayaa ahaa mid meesha ka saaray ballanqaadkii uu sannado ka hor u sameeyey awowgii oo ahaa inuu maalin u ciyaari doono kooxda riyadiisa ee Real Madrid oo ay Spain ku xafiltamaan Barcelona. ballanqaadka awowgii ayaa burburay kadib xalay markii uu si bilaash ah ugu biiray kooxda Barcelona. Maxay ahayd sababta uu Lionel Messi maaliyadda nambar 10 ugu xidhay kulankii xalay PSG? Miyuu la wareegay? Qodobka isaga ah ayaa aynu kaga hadli doonaa. Paris Saint-Germain ayaa xalay ka hortagtay dhigeeda naadiga Nice wareegga 16 French Cup-ka. kulankaas ayaa ka dhacday arrin aan badi jamaahiirta ku talagelin oo ahaa in Messi Paris u xidhan doonaan maaliyadda nambar 10 walow lagu yaqaanin nambarka 30aad. kulankaas ayaa ahaa mid qalbi jab ku noqday kooxda caasimadda France kadib markii Nice rikoodhayaal kaga cirib jartay tartanka wareegga. ciyaar socotay 120 daqiiqo oo la isku mari waayey eber. Si kastaba ha ahaatee, shabakadda Goal.com ayaa sharaxaad iyo faahfaahinba ka bixisay sababtii Lionel Messi kulankaas ugu ciyaaray garanka dhabarka lagaga xardhay maaliyadda nambar 10. sababta Lionel Messi nambarka u xidhay kulankaas ayaa Nice wajaheen ayaa ahaa in tartanka French Cup-ka wareegiisa 16 ku jiro dhaqan ka duwan dhaqanka kale ee horyaalka Ligue 1-ka, taasoo 11 ciyaaryahan ee ciyaaraya ay xidhan doonaan nambarada u dhexeeya 1 ilaa 11. sababtaas darteedna Lionel Messi sababtaas ayuu u xidhay maaliyadda nambar 10. waa kuma xiddiga lafdhabarta Real Madrid ee dhaawac soo gaadhay ka hor kulanka Champions League ee PSG? Qodobka isaga ah ayaa aynu milixsan doonaa. Tababare Carlo Ancelotti ayaa si werwer leh uga sugay ogaanshaha haddii uu awoodi doono inuu daafaca bidixda kooxdiisa Fernand Mendy uu xulan karo kulanka wareegga 16 Champions League ay ka hortagi doonaan PSG bartamaha bishan bilaatay. Mendy ayuu soo gaadhay dhaawac muruqa ah oo laga cabsi qabo inuu seegi doono lugta koowaad ee gegida Paris ka dhacaya, waxaana ku dhowaad hubaal inuu daafaca reer Faranse ka maqnaan doono Los Blancos ciyaarta dhammaadka koobtareega ee Athletic Bilbao ka hortagi doonaan kulamada horyaalka Ligue 1 ee Villarreal iyo Granada. Carlo Ancelotti ayaa waayi doona mid ka mid ah xiddigaha lafdhabarta shaxdiisa, weliba iyadoo booska uusan haysan ciyaaryahan ka dheela sidiisoo kalena u ciyaara tayadiisoo kale leh. barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ku egay. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar, haddii hore noola joogtana like share ku dar, siina faafi barnaamijkeennan si uu gaadho asxaabta jecel kubadda cagta. mahadsanidin.